taariikhdu markay ahayd 31 bishii 12 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xaaji axmed ilka case 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo darajiyayaashow degmada doogu horseeda darajiyayaashow haddaalina weligii soomaaliyay dib u dhigashadu horayna diiroode hawsha dayacawdida soomaaliyay dib u dhigashadu horayna diiroode hawsha dayacawdida dibbirdaaawayniyo dibjirgaajoo dubatay inay deerisaadaan dib dambeetu haw filin samadiido dabinbaa ku dhigan lagu dili doono samadiido dabinbaa ku dhigan lagu dili doono bahayskoo duugaagu waa daldalaadan dacwa lahayn samadiido dabinbaa ku dhigan lagu dili doono bahayskoo duugaagu waa daldalaadan dacwa lahayn samadiido dabinbaa ku dhigan lagu dili doono darajiyayaashow degmada doogu horseeda darajiyayaashow haddaalina weligii darajiyayaashow degmada doogu horseeda darajiyayaashow haddaalina weligii